khilaafkan u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Tigreeda halkuu salka ku haya tilaabada militariga ra'iisul wasaare Abiy Ahmed maxay ka bedeli doontaa fikirka TPLF-ka dagaalkan socdo saameyn intee leeg ayuu ku yeeshay shacabka deegaanka dowladaha gobolka midowga Afrika maxay ka yiraahdeen marxaladan ka soo cusboonaata dalka Ethiopia haddii aad ku cusub tahay channelkayga Maxamuud Milano official fadlan subscribe dhaho gambalelkan u furo si aad ugula socoto warbixinadan halkan aan ku soo gudbiyo waana ku mahadsan tahay dhageysiga warbixinadeeda hanjabaadaha hawada la isku mariyay warbaahinta labada dhinac kale taageeray ayaa xiisada cirka ku sii shareeray ugu dambeyntii talaabo militari ah laga fikirin saameynta ay ku yeelanaysa dadka deegaanka ayuu ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ku dhawaaqay waxaana xaalad dagaal lagu wajahay gobolka Tigreenya si gacan ku heyntiisa dowladda dhexe ee maamulka ula wareegto wuxuuna Abiy Ahmed u magacaabay madaxweyne cusub Dr. Mula Nega oo taageero ruuxi u ah xukuumadda dhexe TPLF oo taageero ka helay maleeshiyaadka deegaanka ka soo jeedo iyo ciidanka federaalka ciidamo laga kala keenay maamulada Oromada Xabashida iyo Soomaalida iyo ciidan caloosho shaqaystayaal ayuu u dhaxeeyaa dagaalkan ka socda waqooyiga Ethiopia waxa in ka badan 1500 ku nafaayeen diriirtan tanna waa qiyaasta la sameeyay in kastoo guddi xaqiiqo raadina aysan jirin oo dhimashada tirakoob rasmi ah ku sameeyay warbaahintana la wadaagay labada dhinac ayaa guula ka sheeganayo waxaana maalin ka sii dambeysay colaad u yeelanaysa wajiyo cusub ilaalinta Ethiopia ayaa soo saartay amar lagu xiirayo hantida 34 shirkadood oo waaweyn kuwaas oo la xiriirinay inay Tigreedu leeyihiin shirkadaha la xiira ayaa sidoo kale laga mamnuucay in la bixi karaan dhaqaalaha u yaala bangiyada Ethiopia sidoo kale waaran soo qabasho waxaa loo jaray saraakiil gaarayso 75 ka tirsan ciidanka difaaca Ethiopia oo lagu eedeeyay in TPLF ku taageero siinayeen ilaa xuduudda Ethiopia la leedahay ayaa la sheegayaa in diyaarado drone oo Imaaraadka laga leeyahay dul haawayaan wali kamaysan hadlin dhinacyada gobolka isku hayo sidoo kale Masar oo sheeda ka eeganayso xaaladda guud ee Ethiopia habda waxa isbedela maadaama labada dal ay isku hayaan biyo xireenka xukuumadda Addis Ababa ee dhisanayso taasi xukuumadda Masar ka gadooday waxaana sii xumaaday xiriirka labada xukuumadood dadka falanqeeya siyaasadda gobolka ayaa qaba in TPLF ka taageero ka heli karaan xukuumadaha Eritrea Masar qaar kamid ah dalalka Carabta si maamulka Tigreeda u helaan xorriyad iyo madax bannaani dagaalkan u dhaxeeya dhinacyada isku haya gudaha Ethiopia ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay shacabka deegaanka ee diriirtu ka socoto waxaana halkaas ka socdo barakac xoogan waxaana laga soo warinayaa in xaalad cunto yaraan ay ka jirto deegaanada qaar ee hoos yimaada maamulka Tigreenya Suudaan ayaa sheegtay inay soo gaareen dad qaxooti ah oo dagaalka ka soo barakacay una baahan gargaar degdeg ah si loo badbaadiyo nolosha kumanaan kun oo barakacayaal oo reer Tigreenya oo Suudaan iminka ku sugan midowga Afrika ee arintan qosaysa wali guddi umuusan xil saarin si Abiy Ahmed iyo maamulka Tigreenya loogu qanciyo inay xabad joojin ay qaataan si dadka deegaanka ay badbaado u helaan xaalad diblomaasiyadna lagu xalliyo khilaafka hadda jiro midowga Yurub iyo Mareykanka iyo wadamo qaarkii sheeda ayay ka eeganayaan marka laga reebo wasaaradaha qaar ee arrimaha dibadda ee dalalka caalamka oo baaqiya ka soo saaray xaaladda Ethiopia waqtigan waa loo sahal in kastoo san gudaha midnimo buuxda ka jirin tan iyo Abiy markuu imaado ayaa la rajeynayay in isbedel Ethiopia ay ku tilaabsato si loo bedelo dastuurka dalkaas shacabka reer Ethiopia hogaamiyaha Abiy ku xigana ee gacantooda ku soo doortaan balse arintan dagaalka ah ee gobolka Tigreeya lagu wajahay ayaa u muuqata mid argoosi ah taasoo aad ka dareemayso hadba warbaahinta maamulada Xabashida Soomaalida iyo Oromida siday u hadalhayaan dagaalka ka socdo waqooyiga dalka Ethiopia warbixintan anigoo Maxamuud Sheekh Cumar Milano ayaa idin soo jeedinayay waxaana ka dhageysataan channelkayga gaarka ah ee Maxamuud Milano official haddii aad ku cusub tahay subscribe saaro gambalelkan u furo si aad u hesho warbixinadan iyo kuwa kale oo halkan ku soo gudbiyo maalin wanaagsan Soomaaliyeed